dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa saaka hirti waa berigii ku guuleysatay istaarka warshada asfal balaan mixerka ama warshada isku walaaqda chayga iyo daamurka taasi oo hawshooda ka socotay xarunta sayidka dowladda hoose caasimadda Hargeysa ay ku leedahay buurta Naas Abaarso ee galbeedka caasimadda Hargeysa hore loo tijaabiyay karashar waxaana warshadan tijaabadii ugu horeysay ay bilowday saaka duqa caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Solteeko xogayaha fulinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa mudane Axmed Darajo xildhibaan Cabdicasiis Siisto xubno kamid ah agaasimayaasha dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa ka hadlay qorshaha mustaqbalka dhow ee horumarinada caasimadda Hargeysa iyagoo sheegay in dhawaan la dayactiri doono wadooyinka caasimadda Hargeysa taasi oo ay qayb ka noqon doonto warshadan iminka la tijaabiyay xildhibaan Cabdicasiis Aadan Habane Siisto mas'uulka dowladda hoose caasimadda Hargeysa u qaabilsan xarunta Naas Abaarso ayaa ka warbixiyay hawsha ka socota xarunta Naas Abaarso isagoo sheegay in hore loo tijaabiyay karasharka iminkana saaka la tijaabinayo warshadan isku walaaqi doonto chayga iyo daamurka waxaa ka qoraysan warshad asfal balaala oo industrial ah wali hore Soomaaliya iyo Somaliland midna laga mas'uul qalabka ka yaala وقلب أبواب بدن وكركرة وكيف يقول وين وقبطه ودوين كمجالات وحفر بدن القارة الصب طلع إن يدولده هو صيد وحيس إن دلقة فيلي أي صدق صايم هو قبل خرطه ما أنتوا حنقول شغلات تشابدي وحلا استعاروا طلب كمان كوارث السنة أسفل البلاد كركشة وسجوا لما يستعمل تشابدي زيوم برودكشن كيسي ما مصعدة مركها هراوين صوردنا وكأرك دونتان halkan waxa yaala beefartii oo tii googleysay oo iyada laftigeega tijaabadeedii iyo monitoringkeegii iyo hawsheedii la sii dhameystiray dhawaan bishan gudaheegana waxa laga yaabaa inaan wadooyinka ku horeeyay aan tijaabadeeda ku bilowno xogayaha fulinta dowladda hoose caasimadda Hargeysa mudane Axmed Darajo ayaa golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ku amaanay inay ku dhiiradeen inay keenaan qalabkan iyo mas'uulkiisa maanta runtii farxad weyn bay noo tahay in la tijaabiyo qalabkii oo si fiican oo qurux badan ugu soo bixi doono iyadoo runtii ay qayb weyn ka qaadan doono wadooyinka dalka oo dhan iyo golihii deegaanadii hore ka horeeyay runtii golaha deegaanka hadda taagan beel dahab ay ka qaadatay qalabka baaxadaan duqa caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis Solteeko ayaa ka hadlay tijaabadan lagu sameeyay warshadan isku walaaqi doonto chayga iyo daamurka waxa tijaabadii ku jira asfal balaankii la istaaray halkan aad ka arkaysaan oo qaybtii ay hadhay oo ahaa productionkii ma hadhay warshadii oo dhan la wada tijaabiyay insha Allah ta'ala testing way tastiguna markuu production soo saaro waxa uu dadweynaha caasimadda Hargeysa ugu baaqay inay soo dhaweeyaan horumarinta ay dowladda hoose ay ka wado caasimadda Hargeysa isla markaasina iska bixiyaan cashuurta ku waajibtay si loo hirgeliyo wadooyin bilicdeedu aad u sareyso waxaan leeyahay shacbiga gacantaadii baa hadhay gacantaada hadii aydan anagu intii aan dadaalayno waan dadaalay laakiin production markuu bilaabno wuxuu u baahan yahay lacag badan oo daamur haday noqoto shidaal haday staff noqoto haday noqoto wixii kala shaqeynayo dadweyne qaaraanka iyo cashuurta waa ka maaginad Cabdiqaadir Cabdullaahi Nuur telefishinka qaranka Soomaaliland Hargeysa.